Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Habeen wanaagsan. Halkan waa Dumarka Tooshmow. Qodobada wararka caawa ugu doorka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xiisad caawa ka taagan Muqdisho iyo Jenaraal Saadax John oo ku laaftay shir kale. Dagaal ay dad badani ku dhinteen oo ka dhacay Sool. Qoorqoor iyo Buurlaabe oo musharaxiinta u caddeeyay mowqifkooda ku aadan muddo kororsiga madaxweyne Farmaajo. Beelaha Hawiye oo go'aamiyay shir weyn oo lagu gaarayo go'aamo xasaasi ah. Qodobka dibadda aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah Biden oo safiiro cusub u soo magacaabay Soomaaliya. Kusoo dhawaada faahfaahinta warka. Xiisad ka dhexeysa ciidamada dowladda iyo taliyihii hore ee ciidanka booliska gobolka Banaadir Jenaraal Saadax John ayaa mar kale caawa ka taagan magaalada Muqdisho kadib markii ay dowladda isku dayday in ay go'doomiso. Saadax oo wata gaadiid dagaal oo badan ayaa caawa dib ugu laabtay xaafadda Shirkole kadib markii ay dowladda ciidan badan dul dhigtay guriga uu ka deganaa agagaarka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Saadax ayaa gurigiisa agagaarka garoonka Aadan Cadde ku laabtay shalay subax kadib markii madaxweynaha Galmudug Qoorqoor uu ballan qaaday inaysan dowladda soo weerari doonin, hase yeeshee maanta ayaa ciidamo badan la dul dhigay. Si kastaba, Saadax iyo ciidankiisa ayaa xoog kaga gudbay barta koontaroolka ee wadada Jayga ee agagaarka garoonka, halkaasoo galabta ay dowladdu ciidan xoog la geysay si ay u go'doomiso. Wararka ayaa sheegaya inuu hadda ku sugan yahay deegaanka Shirkole oo ah xaafadda ay reerkiisu u badan yihiin. Qaybaha ka mid ah xaafadda Shirkole iyo xaafadaha ka ag dhow ee degmada Hodan ayaa waxaa caawa laga dareemayaa dhaqdhaqaaq ciidan iyadoo ay dowladdu iyo ciidamo badan dhigtay. Mana cadda qorshaha ay damacsan tahay. Sidoo kale, ciidan ka taabacsan Saadax oo xooggan ayaa ku sugan Shirkole. Dadka xaafadda Shirkole ayaa soo wariyay inay maqlayaan rasaas kooban, balse waxaa lagu waramayaa inaysan ahayn isku dhac ee ay tahay mid ay rideen ciidamada. Wararka ka imaanaya gobolka Sool ee Somalilan ayaa sheegaya in deegaan lagu magacaabo Dabardalool oo ka tirsan degmada Xudun ee gobolkaasi uu shalay galinkii dambe ka qarxay dagaal xooggan. Dagaalkan ayaa waxa uu u dhexeeya laba beelood oo deegaankaasi wada dega oo muddooyinkii dambe ay ka taagneyd xiisad u dhaxaysa labada dhinac. Dagaalkan ayaa ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira sida ay dadka deegaanka ku waramayaan, waxaana la soo warinayaa in ilaa iyo 10 ruux oo labada dhinac ah ay ku naf waayeen dagaalkaasi. Ilaa hadda si rasmi ah looma oga waxa uu salka ku haya dagaalkan, waxaana soo baxaya warar sheegaya in labada beel ay isku hayaan dhul ballaarsi kadib markii mid ka mid ah beelahaasi uu qorsheynayay inuu ceel biyood ka qoto deegaanka Dabardalool. Mana jiro ilaa hadda wax war oo ka soo baxay xukuumadda Somalilan iyo laamaha amniga oo ku aadan dagaalka labada beel oo sababay geerida dad hor leh. Waxaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka si weyn uga socda qabanqaabada shir weyn ay isugu imaanayaan beelaha Hawiye sida ay inoo xaqiijinayaan siyaasiyiin iyo xildhibaano ka soo horjeeda beeshaasi. Shirkan ayaa waxaa lagu wadaa in toddobaadkan soo socda uu ka furmo magaalada caasimadda ee Muqdisho, waxaana kasoo qaybgalaya waxgaradka siyaasiyiinta, madaxdii hore iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabelle. Shirkan ayaa waxaa laga soo saari doonaa go'aano adag oo ka dhan ah qaraarkii uu dhowaan Golaha Shacabka ugu sameeyay muddo kordhinta madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sidoo kale, waxaa shirkaasi inta uu socday caddeyn doona mowqifkooda ku aadan muddo kororsiga madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle, kuwaasi oo lagu wado inay ka warbixinayaan waxay kala soo kulmeen madaxweyne Farmaajo marka ay la kulmaan iyo mowqifka ay ka qaateen muddo kororsiga. Shirkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli ay labadii maalin ee u dambeeyay kulamo xasaasi ah uu dhex maray midowga musharaxiinta iyo madaxweynayaasha Galmudug iyo Hirshabelle oo ayagu lagu tirin jiray inay ka mid yihiin maamulada taabacsan madaxweyne Farmaajo. Madaxdan ayaa isku afgartay in dalka doorasho aado oo aan la taageerin muddo kordhinta, iyadoo labada madaxweyne dowlad goboleed ay dalbadeen in Farmaajo marka hore uga soo digaan khatarta muddo kordhinta, taasi oo ay si adag uga hor yimaadeen beesha caalamka. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli ay xaaladda dalka ka sii darayso tan iyo markii uu Golaha Shacabka ku dhawaaqay muddo kordhinta, waxaana intaasi wixii ka dambeeyay magaalada Muqdisho ka socday abaabul ka dhan ah tallaabadaasi. Ugu dambeyntiina, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa si rasmi ah safiiro cusub ugu soo magacaabay Soomaaliya, isla markaana xilkii ka qaaday safiirka muddada dheer dalka u joogay ee Donald Yamamoto. Madaxweyne Biden ayaa u xushay in safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Danjire Larry Andrew Chiar
oo ah rug-cadaa muddo badan ka shaqaynayay diblomaasiyadda. Andre ayaa ka mid ahaa 9 safiir oo uu xalay magacaabay Biden, kuwaasi oo badankooda loo magacaabay dalal Afrikaan ah. Andre iyo safiirada kale ayaa u badan inuu ansixiyo aqalka Senatorka Mareykanka kahor inta aysan qaban xilalka loo magacaabay, taasi oo qaadan karta muddo bil ah, waxaana intaas sii shaqaynaya safiirada hadda xilka haya. Andre ayaa ah safiirka Mareykanka ee Djibouti intii u dhaxaysay Noofembar 20, 2017 ilaa Janwari 20, 2021, isaga oo ka horna ahaa safiirka Mareykanka ee Mauritania muddadii u dhaxaysay 2014 ilaa 2017. Andre waa diblomaasi rug-cadaa ah oo diblomaasiyadda ka shaqaynayay tan iyo 1990, wuxuuna ka soo shaqeeyay 9 howlgal dibadeed oo badankoodu ah Afrikaan. Magacaabista Andre ayaa imaaneysa iyada oo xiriirka Mareykanka iyo Soomaaliya uu aad u xun yahay, isla markaana wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay dhowaan ku hanjabtay tallaabooyin ay ka mid yihiin cunaqabateyn oo ka dhan ah madaxda dowladda federaalka kadib markii ay sameysteen muddo kororsi 2 sano ah. Donald Yamamoto ayaa muddo lagu eedeynayay inuu aad ugu dhowaa dowladda federaalka kuna fiirsanayay qaladaad iyo xadgudubyo badan, inkastoo markii uu xilka qabtay Joe Biden oo u bedelay Trump 20 Janaayo 2021 uu sameeyay isbedello u muuqday inuu dowladda si kulul ula macaamilayay. Dadka siyaasadda darsa ayaa rumaysan in magacaabista Larry Andre ay xilli xun ku imaaneyso dowladda federaalka, maadaama uu yahay diblomaasi aaminsan dimuqraadiyadda iyo dhowrista xuquuqda aadanaha oo cadaadis badan ay kala kulmi doonto. Guud ahaan warkeena habeenimo inta ayaynu kusoo gabagabeyneynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaah.